Assalaamu calaykum. Haddaba soo dhawaada saaxiibayaal. Muuqaalkeena maanta waxa uu la xiriiraa mowduuca heera ee xeeladaha guusha lagu kasbado. Haddii aadan mowduucaas daawan, waxaan kugula talin lahaa inaad soo daawato. Haddaba xeeladeena lixaad waxayna leedahay isxilqaan, taasoo macnaheedu tahay meel aad madaxeeda tahay majeeda laskama dhigo. Haddii aadan adiga sabab u noqon horumarkaaga, ogow sabab waxa u noqon doontaa hoos u dhacaaga. Isxilqaanku waa in aad wax kastoo kugu waajibay inaad ka soo baxdo duruuf kasta oo jirta aanay ka hor joogsan, caqabad kasta ama dhib kasta oo ka hor yimaada aanad u joojinay, dibna aadan u noqonay ilaa aad guushaada ka soo taabato. Haddii aad sugayso in lagu adeejiyo, ogow waxa lagaaga horeeyay waxaan ahayn ma gaari doontid. Haddiise aad adigu is adeejinayso, wax adiga kuu gaara ayaa laga yaabaa inaad gaarto. Intii wax lagu amri lahaa adigu is amar oo shaqadaada ogsoonow. Markaad adi is adeejisid, cidna ma dhaleecayn doontid. Hasigoo in lagu adeejiyo adiga is adeeji oo horumari naftaada, xal lagula ogyahay xiise ma leh. Haddii aad isxilqaantid, waxaad ogaan doontaa faa'iidada ku jirta mas'uulinimada. Xeeladeena toddobaad waxayna leedahay aqoon. Aqoontu waa furaha guusha, waana mid ka mid ah astaamaha lagu gaaro guusha. Aqoontu waa iftiinka nolosha, waana miisaanka uu qofku ku kala soocayo guusha iyo guuldarrada, samaanta iyo xumaanta. Waxbarashadu in jahli lagaga baxo, aqoonna la yeesho, mugdiga ilays lagu bedelo. Aqoontu waa anshax, waana eedaabta, waana anfac, waana shayga ugu qaalisan uu qof ahaanti ahaan u leeyahay, waana shayga kuu sahlaya in aad gaadhid himiladaada. Tusaale, haddii aad tiraahdo waxaan doonayaa inaan noqdo wariye oo aadan barinin cilmiga saxaafadda, waad ku guuldaraysanaysaa inaad noqoto wariye fiican. Si aad guul uga gaadho mihnadaada, waa inaad marka hore barataa cilmiga saxaafadda. Raadinta aqoontuna waa sir ka mid ah siraha guusha lagu gaaro. Aqoonta yar waxaa lagu kabaa aamus. Qofka lama ogaan karo inta uu cilmigiisu la eg yahay haddii aanu isagu hadlin. Calaamadaha ugu waaweyn ee dadka guulaystay leeyihiin waxaa ka mid ah wixii ay barteen aynan ilaawin, ayna raadiyaan wax cusub oo ay bartaan. Marna ha isdhihin cilmi kuma dhinna. Nabi Muuse calayhi salaatu wassalaam, isagoo nebi alla soo diray ah, ayuu hal mar yidhi anaa ugu cilmi badan. Waxaana loogu jawaabay cilmi badnaan iska daaye, addoonka iyo qadar ayaa kaa cilmi badan. Marka sidaas darteed, markasta ha is cajibin adiga. Xeeladeena sideedaad waxayna leedahay daacadnimo. Daacadnimadu waa tilmaan ka mid ah tilmaamaha ay leeyihiin dadka guulaysta. Waxay daacad u yihiin naftooda, dadkooda iyo dalkooda. Ma khiyaamaan dadkooda, maxaa yeelay waxay ogsoon yihiin in khiyaanadu ay ku soo dul noqoto qaa'inka laftiisa, qaa'inkuna uusan liibaanin. Kuwa dadka khiyaama ayaga ayaa ugu welwel badan, sababtoo ah wuxuu filanayaa in mar uu nagu fahmi doono khiyaanada uu dadka khiyaamay. Haddii aad in yar khiyaamo ah ugu jirto, iska saar oo daacadnimada raadso. Ha ka baqin in aad fashilanto. Haddii aad weyso wax ku caawiya, ee u sabir dhibka iyo kelinimada go'aankaaga. Ma jiro qof hoos kuu dhigi kara, si taas la mid ahna qofna kor kuma qaadi karo. Intaba adiga ayaa samayn kara. Marka ay wax kasta dhanka xun ku soo xijiyaan, adiga dadaal iyo dulqaad ku wajah. Qofna ha khiyaamin, sababtoo ah qofka aad khiyaantay waad ilaawaysaa, balse isagoo kuma ilaawayo. Inta aad khiyaano wax ku raadinaysid, waad awoodaa inaad daacadnimo wax ku raadsato. Risqiga Allah subxaanahu wa tacaala ayaa bixiya, xalaasha ayaana barako badan. Ku dadaal inaad xalaasha badsatid, xaaraantana ka fogaatid, sidaas ayaadna ku guulaysan. Haddaba intaas ayuu ku egyahay mowduuceena. Tan iyo muuqaalka xigeentaa ku kulmi doona, waxaan iga tegayaa sidaas iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.